رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر ayaa isbedel kooban wuxuu ku sameeyay xubnaha golihiisa wasiirada iyadoo wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi laga dhigay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid oo isagana ahaa xildhibaan soo kala ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddo ka yar bil halkaasi joogayna waxa laga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka halka Cabdisalaan oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalkana isagana laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya afayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyay isbedelka lagu sameeyay golaha wasiirada waxaanu ku soo aadayaa xilli maalmihi la soo dhaafay aad loo hadalhayay isbedelkan oo dad badan ay dhowrayeen wasaaradaha qaar dhibaatooyin badan ayaa ka jiray qaarkoodna wasiiradu maba shaqeyninba si wasaaradda gaashaandhigga dalka waa kan afayeenka xukuumadda Farxaan Jimcaale oo faahfaahinaya isbedelkan iyo dhacdooyinkii kale ee xukuumadda ama tallaabooyinkii kale oo ra'iisul wasaaraha qaaday bismillaahir rahmaanir rahiim رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرال الصومالية مدن حمزة عبد البر waxa galabta uu isku shaandhayn ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada ee xukuumadda danqaran isku shaandhayntaasi waxa ay saameynaysaa xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda gaashaandhigga ra'iisul wasaaruhu markuu arkay qodobada 97 98 iyo boqolaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda danqaran markii ra'iisul wasaaruhu uu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada waxa ra'iisul wasaare mudane Xamse Cabdi Barre uu magacaabay xubnahan soo socda mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Daay waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Ambassador Axmed Macalin Fiqi Axmed waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya aragtidaada qaybta safaalada Nawrab isbedelkan kooban muxuu ka bedeli karaa siyaasadda Soomaaliya shaqooyinkii wasaaradaha iyo xafiiska wasaarada ku-xigeenka labaad ee dalka si gaar ah gaashaandhigga muxuu ka bedeli doonaa arrimaha dalka Soomaaliya maadaama xilli dagaal oo culus lagu jiro aad oo maasantiin